shir looga hadlayay hirgelinta mashruuc lagu soo nooleynayo iskuulada lagu barto farsamada gacanta si loo horumariyo xirfadleyda isla markaana ay bulshada Soomaaliyeed u helaan fursado shaqo ayaa waxaa maanta daahfuray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriso kaas oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo hay'adda GIZ oo ka socota dalka Jarmalka taas oo fulinaysa mashruuca lagu hirgelinayo dugsiyada farsamada gacanta. Shirka ayaa inta uu socday waxaa aad looga hadlay sidii loo dadejin lahaa fulinta mashruuca lagu hirgelinayo xarumaha lagu barto farsamada gacanta si bulshada ay uga faa'iideystaan iyadoo qodobada shirka looga hadlay ay ka mid ahaayeen sidii loo hirgelin lahaa iskuulka farsamada gacanta ee dowladda hoose Xamar. Duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriso ayaa shir kadib waxa uu ka hadlay faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay hirgelinta dugsiyada lagu barto farsamada gacanta. Marka barnaamijkan waa barnaamij shaqo abuur ah, waa barnaamij dhalinyaradeenna hagaya inay bartaan xirfadaha adduunka looga baahan yahay waliba si caalami ah. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradaha dowladda federaalka oo arrintan ayagana juhdi badan geliyay sidii dhalinyaradeenna shaqo abuur loogu sameyn lahaa. wasaaradda waxbarashada, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda qorsheynta iyo dhammaan hay'adaha dowladda. Waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ayagana isku taxallujiyay in ay fursad siiyaan dhalinyaradooda oo xarumo farsamo gacanta ka hirgeliyay dalka oo dhan siiba magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kaleba oo xeela bariisa ka mid tahay hana academy ka mid yihiin. Annaga maamulka gobolka Banaadir haddaan nahay waxaan ahmiyad gaar ah siinaynaa sidii dhalinyarada oo 75% ah shaqo abuur ay u heli lahaayeen. Sidii shaqo abuurka ay ku heli karaanna waa inay bartaan xirfadihii ay shaqo ku heli lahaayeen ayagoo cidna u baahan. Marka runtii tan waa ahmiyad gaar ah dhanka dowladda federaalkana ay siinayso. Annaga maamul gobolka Banaadirna aan siinayno gaar ahaan magaalada Muqdisho oo aad ka warqabtaan in maaragtay dhalinyaradeedii muddadii 30 sano ahayd duruufo aad u adag ay ku soo koreen taasoo dhaxashay inaysan helin waxbarashadii tayada lahayd oo loo baahnaa. Marka si taas beddelkeedii looga kabto waxay u baahan tahay dhalinyaradeena waliba gabdhaha in shaqo abuurka iyo farsamada gacanta ayaga si gaar ah. Marka waxaan si gaar ah uga codsanayaa shirkadaha iyo hay'adaha dhaqan gelinaya barnaamijyadan inay tixgelin gaar ah siiyaan gabdhaha Soomaaliyeed. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.